wasiirkii hore wasaaradda biyaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee xukuumaddii madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo baasha cali jaamac oo imikana ka tirsan saraakiisha sarsare ee xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa ka hadlay maamulka cusub ee caynaanka u qabtay hogaaminta maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland. siyaasi baasha cali jaamac oo khadka telefoonka ugu waramayay shabakadda caalamiga ee Harunaag News ayaa sheegay in madaxweyne ku-xigeenka cusub ee maamul goboleedka Puntland uu yahay nin jabhad ah oo ka soo dagaalamay Kalshaale isla markaasina ay ka suurtoobayso inuu dagaal ku soo qaado Soomaaliland maadaama uu deegaan ahaan ka soo jeedo gobolka Sool. والله الدولة سنة وحيوات مثل قاعدة أو الديمقراطية المتصي يصير في عنها marka nimankan meesha degan waxa moodeen dadka ka horeeyaan lama filayeen sida nabadgelyada u dhacdo marka waxaan aad ugu hambalyeeyaa madaxweynihii hore gaas doorashada iyo xil wareejinta uu sameeyay waa dimuqraadiyad inaga wadana Soomaaliland waxba inoo tahay waxay meel Soomaaliyeed ka agaaga baasha cali jaamac in madaxweyne ku-xigeenka la doortay ee maamulka Puntland madaxweyne ku-xigeenka ka wuxuu ka soo jeedaa deegaanada Soomaaliland siiba gobolka Sool in arintaasi ka waran waxay ku keeni kartaa jawaab kasta inuu dagaal qaado waa ninkan waa nin jabhada oo ilaa Kalshaale ka soo dagaalamay marka waa dhici kartaa inuu dagaal qaado isagu in marka sababta inaga oo inaga tukanag weerar ku qaadnay eeda inaga leh in leena weeraro markii madaxweyne Muuse Biixi deegaanka tukaraq weeraray wuxuu sheegay inuu dil u tagay Soomaaliland ay leedahay xuduudii Soomaaliland la wada gaadhin adiga taasi maali ku muuqanin ima muuqato aniga hore uga hadlay wadanka waxa ka socday heshiisyo wadiga uga shirarka Awurboqis ala cadeeye iyada heshiisyo wanaag lagu tagay dadka deegaana waa dadkii heshiisyada kaga baxay doorashada kale ilaa ka hayay habka loo gali karo anaga deegaanay xabad haduu qaaday wuxuu ka baxay waa ogtahay in boqolaal dad ku dhinteen labada dhinac waa ogtahay in dad badan barakiciyay oo deegaanka anagu ka soo jeedaa beelaha Awurboqis ku shiraya inuu barakiciyay waxa soo dhan waa ka dignay ka daabaan lili marka hadda wixii dagaal yimaad Axmed Karaas eeda yeelan maayo waxa yeelanaya maamulka Soomaaliland iyo xukuumadda kulmiye oo marka maxay ku yeelanayaan way ku yeelanayaan dagaal bay qaadeen iyadoo heshiis la wado waa soo dhulbaanta wali Soomaaliland ma aaminsana ma garato waxay ilaa Soomaaliland la wada rabnaa de Muuse diiday kulmiye in marka Soomaaliland maxaa ka maqan mar hadii wasiirada deegaanadiina ka soo jeeday Soomaaliland ka yihiin wasiirada ugu sareeya sida wasiirka biyaha in taasmaanidi muuqanin loo muuqato wax saabiqaynti baa loo muuqday in distoorka la furo aniga waxa la isiyo mar hada waxaan wadaynaa doonayna in mid kale in madaxweynaha maamulka Puntland ma ku muuqata adigu inuu arrinkii markii hore madaxweyne gaas uu ku soo wajahayay Soomaaliland dagaalka uu wax badan ka bedeli doono madaxweynuhu ma ku muuqata madaxweynaha laftiisa cusub waxaan ka rajaynayaa inuu qaab nabadgelyo maro oo soo wadadii Muuse marin iyo gaas mareen inuu wada nabadgelyo maro aan ka rajaynayaa laakiin ninka madaxweyne ku-xigeenka dhulkiisa ilaa waa maqan yahay sidee loo galay haddii tukaraq looga keenay haddii tukaraq looga qaaco Axmed Karaas way naga hari lahaan malayn in madaxweynaha Soomaaliland imika talada dalka wuxuu hayay muddo sanada in adu waxa tahay nin Soomaaliland xoogaal waa balse kula muuqata hogaamintiisu waa mid dhinacna ka fiican dhinacna ka xun dhinacna ka fiican tabaruusheek oo qoranaya aroortooda daarood waa leeynayna ama waa baabiinayna ama waa karam way lagu soo duulay been loo sheegi maayo sidii madaxweynayaashii hore dhinacna de uu ka xuyo dalkii dhamaaye wada socday ayuu kala kiciyay oo siduu kala kiciyay marka wuxuu kala kiciyay soo dagaalkii fara kuma qaadin hadii ayna ku isagu ma sameyn soo muudidin komishankii iyo doorashadii komishanka la bedelo soo talaabo ka soo dalka faa'iido u lahayd muudidin oo mu wada sheegay baan anigu kaga walba siinaya adiga maali ku muuqan xuduudda Soomaaliland ee ciidanka Soomaaliland joogan sidee doonaha ku tagaan adiga maali ku muuqan harti waxaynu ka dhiganay Muuse Abukar iyo Maxamed Abukar xuduud la dhex dhigayo adiga maali ku muuqan inaanay yeeleen anaanay yeeleen xuduud aniga waa dhaqaalaha ugu boosaasu ku xidhay nolosha lacag Soomaaliland halka kuma haysto dhaqaale ka beelo boosaasu ku noolaa adiga maali ku muuqan isaaq la kala goynayo qaar la geynayo فرعنا الراعين يقولوا وين حنا الراعين
marka haddii nabadgelyo noqonayso annagaa soo xidhan lahayn xadkayaga haddii heshiisna nala galo laakiin anaa ciidama geynaya oo ciidamadii naataa ciidamada laleeyahay ilaa gaalkacyo ku socdaan marka adigu waxaad leedahay ciidamada somaliland sifahay ku tegeen deegaanka tukaraq ma aha mid waqti xaadirkan loo baahnaa waa sifo qaldan baan leeyahay sababay u tageen ma jirin heshiiskaa socday dabeedna weerar bay qaadeen dad bay barakiciyeen 30 kun oo qoys baa UN-ku sheegay inay kiciyeen oo dadkii maatada ahaa oo waraabayaal cuneen oo luwaya cuneen annagu waxaanu samaynay iyadoo aan xabad shilin nala siin oo aniga laygu leeyahay dayntii aan ku galay Soomaaliya 250 kun baan ku leeyahay Musabixi iyo Siilaanyo oo markaa guryahaygii baan u xaraasay daynta Soomaaliya u galay iyo shirarkii Awroobadii aan cadeeyay marka waxa weeye wakiil awoodayaashii la haysan jiray daacayso ninku awooga haysan jiray la haysto wasiir markaa waxaad leedahay imika Somaliland waa inay u diyaar garowdo dagaalka ka socda Puntland sidoo u jeeda oran maayo anigu boogi waa malahayga anigu dikole Axmed Karaashin uu soo golaanaynin xudud ha tagin baan anigu garanaya laakiin ma garanayo wax kale dagaal anigu nin rabameeyay anigu waxaan leeyahay dalka waan ugu jirnay hadaan xisbiga lahayn maalin loo tawaatir lahaa mucaaradku waa jirisay waanigi u jawaabaya lahaa ayar ma jirisay dalkaan u joogayna anigu maanta la saacado xabad waa ka ridi kara mucaarada laakiin waanan rabin dadkaygaan u jogaya imika xukuumadda Somaliland maan la oran karin xagga gobolada bariga dadaal bay gelisay maadaama oo maalmihii ugu dambeeyay saacadii oo bixidaha haday dadaal gelisay mashaariicda laga hirgeliyay gobolka Soomaaliya ku muuqan mashaariic laga hirgeliyay ma jirto gobolka Sool wasiir hadii SDF ka hirgelisay shiliso 2% baa loogu jiraa account-ka waa 5 milyan sanadkii 5 milyan political fund baa lagu bixiyaa marna maxamed xaaji isticmaali jiray marna haddana Musabixa isticmaala yeelayeerkiisa maaliyadda jooga mashaariicda laga hirgeliyay gudoomiyaha golaha wakiilada iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka biyuhu mashaariicdii saldhigga boolis waxbarashada iyo caafimaadka ay kamid ahaayeen waxba kama hirgeliyay 3 station police oo dadku u arko meel lagu xirxirayo anigu waan u arkaa inay tahay wax amniga wax taraya laakiin dadka u arkaan station police la rabo in lagu xirxiro dadka lagu caburiyo waayo wayonta taalo jaraa'idku fasaxba caburis gaara ka jira emergency looga saaran ciidan beeleedyaha jiraan dalka kale ka jirin qabaa'ilka iyo la kala qaban marka waxaa soo loo baajira markaad leedahay gobolka Sool xabad baan ka ridiyaa deegaankaaga amnigiisu way kor u kacdo aad rabin way muuqataa anigu kaba ridayaan ku laakiin mid kale waa sidoo mucaarad maxabad buu rabaa marka ina sheedeeyeen mucaaradkaas sidoo maxabad bay naga doonayaan waayo taa lagu jirxsana maxamed aadan ismaaciil maxamed jiglan shabakada caalamiga ee Haruna News Hargeysa